السلام يا ما أنت محاجر محادع إن شاء الله وحرب تكلمت عنتها كرسنا يجوبنين xoogaa isteelkan hala yaabina waa sida xaafad ku jooge gabdhaha horta qish badan oo ugu jiro muuqaalkan qishka wax gal ma ahan waxaan rabaa inaan ka hadlo okay yaa waay wiilasha gabadha ay raadinayaan waa midee anoo afka wiilasha ku hadlaay hadii wax khaldan wiilasha commentiga ay soo gali kartiin waxay iga khaldan waa ii sheegi kartiin laakiin waxa isku dayayaa inaan rabitaalkeena noqdo isku dayayaa wiilasheen insha Allah kulay wax walbo adi ay rabtid ani niideeda kuma jiraan mugtahay ma sheegi kari wixii saxda ah laakiin waxa isku dayi doonaa soo wadada saxan inaan keeno gabadha raadinayaan wiilasha waa gabar qurux badan aslan wax walbo waxay ka bilowdan waa quruxda gabadha wiilasha gabadha u baahan yihiin waa gabar qurux badan aslan waxa meesha ka marneen inay ahaato qof ugu yaraan 50% xitaa diinta wax ka taqaan inay tahay maadaama islaam tahay waxa loo baahnaa boqolkiiba boqol diinta wax ka taqaan hadii ay tahay duruufo ay jireen marka yareed inaad wax soo baranin diinta boqolkiiba konton wax ka taqaan sababtoo ah wiilasha horta hal mar rabaan si aan wada ogahay wiil walbana waa weydiin kartaa kan ugu foosho xun kan ugu akhlaaqda xun Allahu musta'an kan ugu dhaqanka xun ma u baahna gabar caana sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay qofkaasina asiga aysan ku koobneen gabdhaha caanka in qaarkood way jiraan sharaf leh qiyam shakhsi ahaaneed leh way buuxaan gabdha noocaas ah laakiin marka laga hadlaayo gabar inta ugu badan wiilasha waxay u baahan yihiin gabar aan ahayn waajib fikirkayga ka hadlooya mar walba waxa diirad saarta waxaan inta ka sheegay inay tahay wax aniga ana dooqayga aan ka hadlooyo ka soo qaad wiilasha saa uu ku leeyahay waa ka hadlaya fikirkooda oo wiilasha waxay u baahan yihiin gabar aan ahayn diin leh muhiim asturan gabar hadii ka asturneen xagga iska taalo gabar ma baahan batas hadii ka asturneen anko kaliya ma qabtid oo lagu qabaa kaliya qofteeda ma aha dadka inay qoftooda tahay hadaad marba aysan ka asturneen gabar asturnaantu waa quruxda boqolkiiba konton gabadha boqolkiiba boqol hadii quruxdaada tahay boqolkiiba konton waa inay asturnaanta ka qaadataa wiilku wuxuu u baahan yahay gabadha markuu intaas ku doorto inay ahaato gabar aan waxba loo sheegin inta wax loo sheegin ka hor wax fahmaysa ani ahaan ardo waxaan jeclahay qof inuu iga dheereen marka xiriir la sameeynaayo sababtaas ku laa wax kale ma ahan waxyaalo kale oo fikiro saaniidaada waa ogahay laakiin waxa soo dhahay wax kale ma aha oo waxaan rabaa qofkan ma israaci karnaa meel ani ma had tusaale waxa jirto nafsadeyda ahaan hadda waxa jirto maalmaha markii la soo tiriyo maalinta isniinta iyo maalinta khamiista waxaan sameeyaa isbuuci waa lagu maalin waxaan sameeyaa maalinta khamiista iyo maalinta isniinta inaan aado dalxiisna ma dhihi karo sababtoo anu ma dalxiisaayo laakiin nafsadeyda waxaan u raadinayaa meel ay raali ku tahay waxaan aadaa hadii wadankan joogtid waa taqaana hoteelada wadankan xitaa buuq ma lahan music meel dheer oo jabi degan music daama qashid waxaan waalida waxaas ma aha music relaxing oo waxa jira meelaha jabiga degan laga daaro waxa isugu imaado meelahan dad projectiyo jaamacad dhigto projectiyo ku diyaarinayo waxa jira oo kambaniyal oo manager ah oo meeshan wax ku diyaarinayo soo dadkaas imaadaan anu computerkayga iyo buugayga qaata meeshaas tagaa waxaan ku akhristaa buugi aan markaas akhrintiis aan wada readingkiis aan wado buuga hadda ii socdo dadka dhan way wada ogyihiin inta YouTube-ka ku jirto sababta mar badan marka hadlaayo ama wax akhrin am tusaale u soo qaadanayo waxaan ka hadlaa buug Atomic Habits oo James Clear uu qoray oo inta ugu badan xisaabaadka iyo physics waxaas ka shaqeynaa laakiin waxa ku jirta qisooyin iyo faham dheeraad ku siinaya soo hadii aad u baahantiin buugaas iga soo codsan kartiin commentiga waxa igu soo qori kartiin buugaas ka soo hadal faa'iidooyinka uu leeyahay 10 shay aan ku soo koobi doonaa oo aad muhiim u ah waan ka soo hadli doonaa hadii aad xiiseynaysiin waay khamiista iyo isniinta nafsadeeda waxaan u raadiyaa meel ay raali ku tahay hadii aan helo quruxda aan dadku u soo gudbinayo mar walba waxa u baahan nafsadeeda u baahan markay nafsadeeda ka dharagto quruxda meesha iyo indheeda ay la raacraacdo soo markaas aan dadku u soo gudbiya aan soo laabto meelahaasaan aadaa sabtidii iyo khamiistii iyo isniinta soo sida awgeeda khamiistii isniinta waxaan u baahanahay qof safarkaas igu heliyo wiilka gabadhu wuxuu ku xushanayaa naxariista wuxuu ku xushanayaa daacadnimada wuxuu ku xushanayaa dulqaadka wuxuu ku xushanayaa respectiga kala dambeynta muhiim waay waxa kale muhiim ah naxariista sababtoo ah markii naxariis laga hadlayo naxariistiyo dhan waxay hoos tagtaa gabadhu marka qaar waxa iska arkaysaa dad xiriir wada leh wiilkii gabadhu wiilkaaban naxariis badan way ku imaatay sababtoo wuxuu ku imaatay gabadhaas ka adag laakiin markii naxariis laga hadlayo kugu soo dhaco hooyo waa qof dumarku intay ka maamaysan noqon gabarnimay ka timid marka naxariista sideedaba qof dumar ay ka agkacdaabo markii naxariis lagu dhaho naxariistu waxay ka soo agkacdaaba qofka dumarka gabadhu haday gabar naxariis badan tahay inta ugu badan gabar gaaban qurux badan ixtiraam leh naxariis leh dulqaad leh respect leh intaas haday gabar isku hesho waa wareey
waxaa maqli jiray waxaa laga bixiyay 100 geelo halaad 100 halaad oo geela taas waxay u qalantaa 1000 halaad oo geela xitaa 1 milyan u qalantaa sababtoo ah Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ilbaab furan lama galee qalbi furanaa la galaa gabadhu inuu qalbigeeda furan waxa ku garanaysaa naxariisteeda fahanka ay ku fahmaydo adoon waxba u sheegin waxa ku garanaysaa dulqaadkeeda ixtiraamkeeda marka wiilasha intaas inta ugu badan gabadhu ku doortaan gabadhu ma sheegi karo waxay ku doorto wiilasha waxay ku doorto ma qaano hadii ay wiiltaa isleedahay optionkaas ka tagteen comment iigu soo reeb marka insha Allah mawduucan maanta halkaas ku eg yahay I hope inaan ka hesheen waxaan saaranaa wadadii ku tagay leeyahay taadkii subscribe insha Allah taka kulmeen muuqaalka xigan see you next video bye